kulanti wacan oo wanaagsan Soomaali Maxamed nabad ku soo dhawaada halkan aan idinka soo salaamayo waa isgoyska baarayaan ee caasimadda dalka ee Muqdisho qaybtaas idin muuqatana waa isbartiibada Studio Muqdisho waa halka ay ka muuqdaan birahaas dhaadheer ee aad arkaysaan garoonka kubadda cagta Studio Muqdisho waxa uu ahaa garoonka ugu weyn geeska Afrika ee kubadda cagta lagu ciyaaro halkan waxa deganaa sanadkii 2006 ciidamada Itoobiyaana haddase waxa degan ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika AMISOM waxa uu ahaa meel ku wacan ku ciyaarista kubadda cagta dhinaca kale halkan aan hadda dusheedii ka soo salaamayo waa hotelkii caanka ahaa ee baarayaan hotelkan waxa uu kulmin jiray dad kala duwan oo isugu jira madaxdii waqtigaas iyo sidoo kale dad shacab ah sida taariikhdu xusaysana hotelka baarayaan waa meesha magaca u ah guud ahaan xaafadda iyo isgoyska baarayaan hotelkan waxa uu ahaa meel ay dadku ku shaacabaan kuna qaxweeyaan meelo badan oo kamid ah duleedka magaalada caasimadda ah ee Muqdishona waxa uu ahaa mid kamid ah meelaha ugu caansan oo duleedka marka la soo hadal qaado la soo qabto garoonka kubadda cagta Studio Muqdisho hadda ay degan yihiin ciidamada AMISOM ayaa u baahan dib u dhis iyo sidoo kale in dhalinyarada deegaanka ay ku ciyaaraan iyo xitaa in dhalinyarada qaranku ay ku ciyaaraan kubadda cagta maadaama ay hadda kooban yihiin garoomada kubadda cagta dhowr jeer ayaa lagu baaqay ciidamada AMISOM inay ka baxaan garoonka kubadda cagta Studio Muqdisho inkasta oo ay dhagaha ka fureysteen madaxda dawladuna aanay hadalkaasi waxba ka soo qaadin waxaan codsanaynaa in ciidamada AMISOM ay ka baxaan garoonka Studio Muqdisho